السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عبد الرحيم سعيد. maanta waxaan idinayaa program wirelesska kugu xidhan xaafadda ama xaafadaha jaarka ama meherad baad timi wirelesska ma taqaanid passwordkiisa waa lagu geliyey amaba kasoo qaad jabsaas tidhi waa xaafadda kugu dhow oo kalaad istiri jabso passwordka xaafaddaas ama passwordka cidaas kuu gelisay oo kale waad arki kartaa adigoo isticmaalaya computerkaaga. haddaba kaliya waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid computerkaaga. waxaad tegaysaa halkan halka searchka computer kasta way ku shaqeynaysaa. computer aanay ku shaqeynin male windows na way ku shaqeynaysaa. windows way kaygo halkaas ayaad ku qoraysaa cmd waa command prompt kaas ayaad soo furaysaa. waxaad right click ayaad taabanaysaa. waxaad doonaysaa run as administrator saas ayaad doonaysaa. administrator ahaan ayaad usoo furaysaa. saas ayuu markaa noqonayaa. halkaas ayaa kugu soo baxaysa. marka halkaas markuu saa kugu joogo wax kale ma sameynaysid. wirelesska imika kan igu xidhan waxa weeyaan waxa magaciisa sii eeganayaa si aan wax dhow iga halaabin. waa Somtel ISP secured weeye. marka si aan passwordkiisa u ogaado ayaa maxay sameynayaa waa inaan maxay sameeyaa waa inaan halkaa ku qoraa waxaan aad ila arki doontaan idinku ha ka jeesanina. halkaas taas ayaad ugu qoraysaa. waxaad ku qoraysaa natish WLAN show profiles intaas ayaad ku qoraysaa. show profiles intaas ayaad ku qoraysaa. waxaan rajeynayaa inaad u jeediin si fiican ila eega. waa inta halkaa ka bilaabanaysa. waa intaas waliba tan kuwa jirta baladheer hore waa intaas ayaad ku qoraysaa. okay waxaad taabanaysaa markaa enter ayaad taabanaysaa. enter ayaad taabanaysaa. waxa kuu soo baxaa ayaad eegaysaa markaa waxaas ayaa kuu soo baxaya. okay markaas intaas kuu soo baxdo waa kaas shirkadda imika ay xidhneed aniga Somtel ISP waa kaas Somtel aniga xidhan. kuwan oo dhan waa xaafadaha deriska iyo kuwaas gas wifi iyo taasaan qaadanayna si aan passwordkeena iyada ugu tijaabino. okay saasaad u jiidaysaa. intaa yar waxaad doonaysaa copy control+c. okay halkan hoose ayaad imanaysaa ee boodboodaysa waa u jeedin. halkaas iyadana waxaad ku qoraysaa natish WLAN show profile okay markaas aad doonaysaa control+v ama past oo waxaad ku baas garanaysaa intii aad soo qaatay Somtel ISP ga ahayd. waxaad doonaysaa /k equal clear intaas doonaysaa enter ayaad taabanaysaa. okay wow imika passwordkii wuu inoo hor yaalaa. indhihiina aan ku tusayaa. halkan akhriya halkan fiirsada. halkaas ayuu ku dhex jiraa. waan idin tusinayaa waxa weeyaan intaas ayuu ku dhex jiraa. halkaas ayuu ku dhex jiraa. waa intaas waa authenticationka intaa ka bilaabanta oo dhan ilaa halkaas intaas oo dhan wuu ku dhex jiraa. anigu waan arkaa carshaya. okay waan idin sheegaya waxa weeyaan security keygaas presentiga halka ah waxa weeyaan macnaha security code wuu u shaqeynayaa ama wuu leeyahay. okay passwordkiina waa kaas. passwordkiina waa kaas oo passwordkii waa ujeedin waa intaas weeye. haddeer tijaabi haddii ay been noqoto aniga soo warceeli. wallahi baan ku dhaartay wuu shaqeynayaa. waxaas ma jiraan xaafada iyo imika cid password kuu diidaysa iyo waxa maaragtay waxaas waa istayseen. computerkaaga baad la soo baxaysaa ama qof walba computerkaaga yara dhiib. halkaas ma soo furanaysaa. videogana waa ku ceshan kartaan. passwordkii imika halkaas ayuu kuu siinayaa. yaan idinka halaabin meesha lagu bixinaya halkaas uu ku jiraa. intaa uu ka dhex akhriya intaasuu ku dhex jiraa. halkaas ayuu kuu soo qorayaa. waa key content mar walba halkaas kuu soo qorayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan idin salaamayaa. linkigayga la socda youtube-ka si aad wax badan u faa'iidaan.